qalligiya waaye dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا هوم كابل تي في ماي وادري نقلت شوقو شغاليسة يا مدحديسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدما شعبك الصومالي لان وحضرك يصاحبنا قولها وسير هذا وقوم يسان كعلص وميل الشاشة صحافته هيسطه كجودي هدانو نهاي غير قرع غير بالعل يوح قلبي كحنونا أيه وهذا الناس لما ركبوا ورنا يا رج بكهد لا يا قبيلة يسقون قعنتو كل شيء تاسوا واحد آدي هذا نقول بتشوف قنية تبصرنا هاي لو حمنا ويقوم مقطع تاين تسان كفر لها تلا بعضاً قدر الأول صلاة دين تي عقاشي يهيبدو دي شرفتي كرامة دي أقدر كيسمان تال كيما رئيسه تاسنا قلبي كحنونا أيضا الشيطان كيسكن نار نضياش صدحات واحد وين تقول هي جورتي ده يبار جورتي ومرك ويرد جورتي إيرجان جورتي مرك الله معناه ينوقف فرده يوحى ينوصل قبتي للجرنا هذا أقدر كيسر رج كتيرة أما قار كم حنا كميدي سيدا يجوجو دي أيان أقول له منين كالسوني ده بيلها قار كود تاسني ده وندي أشوف تنفرد واحد وين أنا سلايس دول تاج أصحابته من عارضك oo aanu haysto inay yihiin bidixdii wadankan ama ummadan loogu talagalay loo qorsheeyay oo inay waxaan anaga aan ku hadlayna inay ka hadlaanahay corruptionka cadaaladda musuqmaasuqa qabiilka iyo maalinka maanta masiibada wadankii ka socotay ee qalbigu ka xanuunayo inay ka hadlaan bay hay buugaag qoraan qorshe siyaasadeed keenaan aragti waxyaabaha ماشي كم مقال. بسم الله الرحمن الرحيم. مركو هراء آد بعد ما هسنتهين وحنا نقول السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتا نهون كيف بلنا آد بانو السلام يا مدحتيسة يمام الكيسة شقادة وناكسنا يوها يا شعبك عم بدتك في الصوماليات ملك سيتشوجان. كل يعني ودنك سنة كستوان تجا حب بدنا وانكا هيا waddanku horta meel fiican ayay xaaladiisu maraysaa haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay horumarka kale weynaynu ognahay waxaynu ku naalnaa mandaqad geeska Afrika oo dhibaatooyin badan ka jirto oo ah adduunka saddexaad bartankiisii marka waxyaabo badan iyo meelo badan markaynu ka eegno alxamdulillah shukri waddanku meel fiican buu marayaa laakiin haddana waxa jira caqabado adag oo u baahan tahay in laga baxo oo yahaydna in wax laga barto waxyaabihii waddanka soo maray تنا واركان أنبا قبيلة لقول شيء وطنكي مركز طي وحير دعام با معركة أدرس وحوجسته تاسنا وحي إلتها يعني كسياسيين بعد كده كريه حيسه وحن كلته إلا سياسيين تا إن شعبك ولا لها جبت اللي قد أيو شعبك وحلاقته سومالان إلا الآن كوحيابا بدن ولا قد دودين باشرة وحن لقد دودين تصالحان دستور كسومالان لقمت دودين أريمها دقالها لقمت دودين maxaan ku raadayay arimaha u baahan sida sharciyadeeda maxaan ku raadayay ictiraafka la raadinayo xagga loo wado waxyaabahaas oo dhan dood dhiibliya oo maaragtay inta aqoonyahan iyo shacabka la isku yeeray wali dood laga gaaray ma jiro dastuurka Soomaaliland badi waa qabyo markii la sameeyay wax kasta baarlamaanka soo socda ayaa hagaajin doona ayaa lagu soo qooday kiina wali baarlamaanka kama doodin waana waqti dhaaf marka anigu waxaan oran lahaa شعبك دبته laga daayo shacabku waa shacab wanaagsan oo xalaal ah oo hoggaan toosan u baahan waxaan qabaa iminka hoggaanka ninka uu hayo madaxweyne Siiraanyo inuu yahay nin ku haboon oo aqoon u leh hawlaha uu wadanka ku hoggaaminayo taana in la taageero baan rajaynayaa buuqan kale xisbiyada ka taagan laftigooda tusaalaan xisbiga kulmiye qolihiisii dhexe uu qabsaday waxa xaqiiqa in musabbixi loo doortay inuu yahay gudoomiyaha xisbiga waxa xaqiiqa in madaxweyne Siiraanyo yahay ninka hoggaaminaya 5 sano ninka xaq u leh in mar labaad la doortana uu yahay marka waxaan oran lahaa buuqanaha laga dhaafo xisbi kasta dhexdiisa golaha dhexe ha ku soo kala baxo Soomaaliland saddexda xisbi saddexda inay soo kala doortaan ayaa u tartami doona mustaqbalka doona insha Allah waa tahay suudaanka soo noqdo Suudaan
waxaad sheegtay in niman wasiir ay qabyaaladda iyagu gacanta ku soo macnaheedu ay dadka ku soo celinayaan haddana ay leeyihiin ninka qabiila dad baa qabyaaladda wada arrintan maxaad ku caddaynaysaa walaal way iska caddayo waddankeenna waxaa ka dhacay dagaalo ehliya oo sokeeye oo masiibo ilaahayna dhaafiye bay ahayd rag baa gaboodfalladii ka dhacay wakhtigii hore 20 sano ka hor maanta meel madaxweynuhu fadhiyo kaga goodiyaya hebel dagaaladii ehligaa kamuu qaybgelin ee sokeeye annaga ka qayb galay madaxweynuhu wuu fadhiya sacabna wuu dhacayaa anigu waxaan isleeyahay waa gaboodfal waa wax aad iyo aad iyo aad anigu aan shakhsiyan weliba aad uga xumahay annaga xishoodaan wasiiradu qabyaaladana ragga maanta talada gacanta ku hayaa laga rabaa inay sidaa intay u kala kaxeeyaan dadka meel wanaagsan mariyaan intaasaan ka odhanaya Soomaaliland waa meelaha kaliya doorashooyin ka dhacaan ee shicibku wax doortaan wadannada la jaarkaa badi ee doorasho saasiba kama dhacdo marka horumarka la gaadhay in laga dhaliyo inay tusaale adduunka loo noqdo ayaa qurux badan in la mijaxaabiyo oo nin siyaasi maanta la taabto uu talaaya yiraahdo shicibkii soo doortay ma geeyaan in dhaqanka noocaas lagula noqdo odayga Soomaaliland waa oday wanaagsan ixtiraam mudan odaygana in media laga maaga anigu ma jecli laakiin rag baa odayada riixaya ragga riixaya odayada dhibta ka daayaan ragga riixaya odayada dhibta ka daayaan ragga u durbaantumaya ka daayaan odayadeenu haddaanay jirmeynaa noolaaneen Soomaaliland halka oday bay ku gaadhay marka oday anigu ma taabanaye rag baa riixaya oo ragga riixaya shidaanka iska naara ninka baarlamaanka in la xidhaa sharciyan adigu say kula muuqato ninka baarlamaanka sharciyan in la xidho de waxa lagu xidhayaa waa inuu wax sameeyo waa inuu dil amba qacan qaad wax waa inuu sameeyo laakiin isagoo waxba sameyn in xasaanadii laga qaado la xidho waa khalad weeyi laakiin baarlamaan baanahay kama dhigna waxaan doonaan sameynayaa dadkan ku xadgudbayaa ninkii dadka ku xadgudbee sameeyo wax sharciga ka baxsan wixii baarlamaankii dhawaan la xidhay ee arkaynay say wax u dhaceen say kula muuqataa anu goobjoog ma nahayne saas xaafadaan uga arkayay baan u arkayay markaa haddii uu dhacay fal ay wax qacan ku geysteen waa kulley wuxuu mutaysan yahay caqabadiisa laakiin ma caddayn karno in lagu xidhay xaq darro in xaq lagu xidhay markaa de iyagii baarlamaanka in weydiinayo ciddii goobjoog ahayd waa taan awlku ugu soo noqdo horta xildhibaanka taas kuma raacayno intii hore waa wada soconay halkaa ku kala leexanay xubinta baarlamaanka ilaa laga qaado saanada xubinnimada ma geeyo in la xidho ma geeyo in la caado waa in maxkamad la keenaa waa in maxkamad xukuntaa kadibna waa in kiis madani iyo caadiya lagu qaadaa laakiin isagoo xilkii ummadda haya oo masayrkii ummadda xambaarsan hatigaad uma qalmo xarigna uma qalmo sharaftii iyo karaamadeedii buu huwan yahay ninka xubinta baarlamaanka taaftayna sharaftii iyo karaamadeedii buu taaftay tiimadu taaftay absolutely ma aqbalay suldaanka waxa ma sharciga ma aqliinay xubinta baarlamaanka haddii lagu hayo lagu qabto isagoo faraha kula jira dambi waa wuxuu mutaystay dadka sharciga kama weyna marka lagu qabto maxkamaddu waa la geynayaa maalin ay noqotaba laakiin marka lagu qabto fal isoo geysana gacanta kula jira xarig weey waxaan ku soo gabagabayn lahaa inuu waddanku meel fiican marayo hiigsi cusubna uu ku jiro waayo dawladdii hore mudane daahriya la hogaaminayay waddanka meel fiican bay soo gaadhsiisay waxay ka hadli jirtay amni horumarkii dhaqaalihiina uu garab socday dawladda haatan jirta iyadoo fursadihii hore ka faa'iidaysatay meel ka sii fiican bay soo gaadhsiisay waynu arkaynaa waddooyinka socda ceelasha la qodayo dhaqaalihii oo aad u kobcay innagoo haysana wasiiradii ugu tayada fiicnaa abdiyana Soomaaliland soo mara hadday tahay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta wasiirka arrimaha gudaha dad khabiir oo aqoontoodii u leh waddanka hogaaminaya taynu u baahanahay waxa weeyaan sidii uu madaxweynaha Siiraayo barigu xilka qabtayba uu iskiin wax u qabsaday uu yiri intaana la sii taabageliyo sharciyada waxa dhimanna si iyadoo qacmaha la iswada haysto looga midho dhaliyo waayo iminka haddii baarlamaankuna saa iskugu booqsanaado iyadoo muddo dhaafa xisbiyada macaaridkuna tayadoodii ay hoos u sii socoto cay meelaha ay la taagan yihiin dee meel xun bay ku dhacaysaa wixii lagu soo tabcay marka waxaan ku talin lahaa xisbiyada macaaridkuna inay istayeeyaan inay horumarka waddanka ka hadlaan inay shooda sameeyaan ay soo bandhigaan dawladduna inay ka korto
inay hoos u soo eegto xisbiyada macaaridka inay iyaduna qorshaheedii oo cad oo waadixa oo ay wada hadallada Soomaaliya lala wada ka mid dhaliso oonay miis aanay ka maqnaan lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya waayo dan badan ayaa inaga dhaxaysa mandaqada waa lagu wada yaalaa walaalana waa la wada yahay waxna waa la wada ka maqnaashiisa ka war shirka Denmark inkastoo go'aan lagu gaadhin haddana Soomaaliland inay fadhido faa'iido weyn bay u yeelan lahayd waayo waxa laga hadlayay waa horumar bay u badnaayeen iyo hiigsiga cusub ee 2016 taana saynu wada ogsoonahay Somaliland qayb bay ka tahay waxa ugu dhex jira qorshe gaar ah oo la yiraahdo Somaliland Special Agreement kaasina wuxuu sii horumarinayaa dhaqaalaha iyo maxaan ku idhaahdaa baahiyaha Somaliland u gaarka ah wasiirkii hore Maxamed Cabdullaahi Cumar oo isagu wadanka meel fiican soo gaarsiiyay siyaasadda dalka furfuray aad buu ugu mahadsan yahay halka uu barigii kaga tagay kan imika joogana waxaan jeclahay inuu halka ka sii wado oo meel kasta oo maaragtay lagaga wada hadlayo arrimaha Soomaaliya Somaliland meelna kaga maqnaa waata Suudaan gabagabadii horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay horta markii horeysa anigu laba qodob baan ku gabagabaynayaa degdeg saxaafadda oo markaad shaashadaha eegto Somaliland aad yaabayso sida waxa ka socda iyo tsunamida difaaca ay dawladdu israadeed kala hortag waxa sida saxaafaddu waa safe qofka israadeed safe way goysaa xukuumadda Axmed Silaayo waxa ugu weyn cabashada ka taagan waa saxaafadii weeyaan ugu horeeyo Home Cable TV iyo qaar kale ilaa ka xiran anigu waxa oran lahaa israadan gooya iyagay gooyn ka shaydaanka iska naarawan leh xukuumadda talabaadan ku gabagabeynaa waxa weeye Denmark haddii ay Soomaaliland hoos tagi leed waxay u muuqan leed maamul goboleed taa xildhibaanka lama qabo intaasaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi Somaliland dhallinyaro way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen allow dhow Somaliland dhallinyaro way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhilbeen